Assalaamu calaykum ku soo dhawaada mar kale kanaalkeena daawadayaal run ahaantii waxaynu kala maqnayn muddo aad u dheer duruufo jira awgood laakiin iminka wixii ka dambeeya waxaynu hawsha ka sii wadi doonaa halka inoo maraysay waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaallo aad ka heli doontaan filimka maanta dabka inoo saaranna wuxuu noqonayaa filim lagu magacaabo Colombiana ku soo dhawaada muuqaalkeena kuna raaxaysta sheekada filimka filimku wuxuu ka bilaabmayaa 1992 magaalada Bogota ee dalka Colombia halkaas oo nin lagu magacaabo Fabio uu kula hadlayo hogaamiye maandooriye oo isna lagu magacaabo Don Luis. Fabio wuxuu Don ku wargelinayaa inuu ka baxay shuraakadiisa isla markaana uu rajaynayo saaxiib isaga ka wanaagsan. Don isagoo dhoola cadeynaya ayuu sheegaya inuu xiisi doono wuxuuna Don indhaha kala hadlayaa mid kamid ah ciidankiisa oo lagu magacaabo Marco laakiin Fabio doqon ma aha waanu ogyahay in la dili doono wuxuuna hore u sii kaxaysanayaa saddex kamid ah ciidan isaga u daacada waxayna aadayaan guriga markay guriga soo gaaraan wuxuu xaaskiisa Aliisha u sheegaya inaanay haysan waqti wuxuuna la dardaarmayaa inantiisa ka taliya una sheegaya haddii ay khatar dhacdo inay aado safaaradda Mareykanka gacantana u geliso mimarigan ay ku duuman yihiin dhammaan hawlaha sharci darrada ah ee uu qabto Don Luis wuxuu kaloo siinayaa ciwaanka walaalkii iyo waliba silsilad dahaba daqiiqada kadib waxa yimid Don Luis ciidankiisii oo uu hogaaminayo Marco waxayna rasaas ku furayaan raggii la socday Fabio iyo Aliisha waxay soo qaadanayaan qoryo si ay isu difaacaan laakiin nasiib darro labadiiba waa la toogtay ka taliya waxay fadhidaa miiska iyadoo yaaban dhagaheedana ay ka guuxayaan dhawaqa rasaastu waxayna liqaysaa jibkii yaraaya mimariga waxa soo hor fadhiisanaya Marco oo si dabacsan ugu sheegaya inuu saaxiib la yahay aabaheed laakiin uu aabaheed ka xaday shay muhiim ah geesiyadii yareed waxay mindi ka taagaysaa gacanta Marco waxayna si xirfadaysan uga boodaysaa dariishada guriga ciidankiina waxay isku dayayaan inay qabtaan laakiin waxay ka galaysaa god ka taliyana waxay u jihaysanaysaa safaaradda Mareykanka waxayna u sheegaysaa in aabaheed la dilay su'aalo dhowr kadib ka taliya waxay iska matajinaysaa mimarigii inta kadib waxay ka kaxaynayaan dalka iyagoo u sameynaya waraaqo sharci ah waxaana magaalada Miami u sii galbinaysa sarkaalada ka tirsan CIA-da Mareykanka ka taliya waxay codsatay inay isticmaasho musqusha laakiin waxay ka boodaysaa dariishada waxayna iibsatay tigidhka baska Chicago si ay u fuliso dardaaranka aabaheed ugu dambeyn waxay la kulmaysaa Emilio oo ah Fabio walaalkii iyadana adeer u ah maalintii xigtay Emilio wuxuu geeyay dugsi uu diyaariyay maamulahana uu siiyay laaluush si ay u aqbasho maadaama oo lagu jiro bartamaha sana dugsiyeedka markii uu ka tagay adeerkeed ka taliya waxay u muuqataa mid xanaaqsan sababtoo ah waxay aaminsan tahay inaanay waxba ku baran doonin dugsigan waxayna u sheegtay inay doonayso inay noqoto dila Emilio wuxuu la soo baxay baaskooladiisii isagoo toogtay darawal wadada maraya taasoo keentay inuu shil galo wuxuuna u sheegayaa gacan ku dhiglayaashu inaanay wanaagsaneyn oo aanay noolaan karin waqti dheer haddii ay doonayso nolol wanaagsanna ay tagto dugsiga filimkuna wuxuu isku jarayaa 15 sano kadib laba askari oo ku dhex sheekaysanaya gaadhigooda waxaana duqeeyay gaadhi kale oo ay wadato gabadh sakhraansan askartiina waxay si dhaqsaa u qabteen gabadhii waxaynu aragnaa silsiladii dahabkayd aynu ku soo aragnay bilowga filimka taasoo ay micnaheedu tahay gabadhan inay tahay ka taliya oo weynaatay waxaana ka taliya isla markiiba loo taxaabay xabsiga isla habeenka boolisku waxay soo xidheen maxbuus kale oo cusub dhinaca kale waxaynu odhan karaa ka taliya iyada ku tala gashay xabsiga inay soo gasho sababtoo ah waxay doonaysay inay disho maxbuuska cusub habeennimadii waxay ku labisatay maryo madow oo ku dhagan jidhkeeda iyadoo qufulkiina ku furtay biinkii timaheeda ku xidhnaa kaamirooyinkiina waxay ka leexisay jihadoodii waxay soo aaday dhanka qolka korontada si ay u joojiso maraxawadda oo ay ugu suurto gasho inay marto dowladda hawo-mareenka xabsiga waxayna farsamada u adeegsatay biyo si marka ay korontadu dareento isla markiiba ay isu bakhtiiso si otomaatiga way u suurto gashay waxayna ku qasban tahay inay ka faa'iidaysato inta aan dib loo daarin korontada ugu dambeynna waxay soo gaadhay qaybtii ragga dhinaca kale askarigii ilaalinaya qolka ninka ayaa dareemay inuu ka dhammaaday qaxwihii waxaanuu ka soo baxay qolkii laakiin nasiib darro waxa si kadisa u dishay ka taliya waxayna meydkiisii ku jiitay kamaradaha hortooda waxay u soo gashay maxbuuskii waxayna ku dhufatay dhowr xabadood markii ay booliskii maqleen dhawaqa rasaasta waxay u soo yaaceen dhinaca qolka maxbuuska waxayna booliskii arkeen waardiyihii oo sita baaskoolad waxayna baadhitaan ku sameeyeen dhammaan goobta halka ka taliya ay u baxsatay saqafka sare waxayna soo martay dhuumaha hawada iyadoo ugu dambeyn soo gaadhay qolkeedii soona xidhatay isla markiibana waxay iska beddeshay dharkii booliskuna waxay u soo dhaqaaqeen qolkii ka taliya waxayna iska dhigtay mid huruda maalintii xigtay ka taliya waxaa laga qaaday faro waana la iska sii daayey markii ay jeelka ka sii baxaysay waxaynu aragnaa iyadoo faraheeda ka siibaysa maqaarka cinjirka ah kaasoo u ekaysiinaya faraha qof kale waxayna tagtay gurigeedii si ay u nasato iyadoo la kulantay saaxiibkeeda rinjiilaha ah ee Dani waxba kama oga nolosheeda wuxuuna u yaqaanaa magaceeda Jennifer Dani iyo ka taliya habeenka waxay u baashaaleen si wada jira sidii caadadeeda ahayd subaxnimadii waxay ka tagtay gurigii dhinaca kale wakiil ka socda FBI-da oo magaciisu yahay Rose ayaa yimid jeelkii wuxuuna ogaaday dilaagu inuu yahay dilaagii geystay 22 dil oo ay baadhayeen 4 sano ee la soo dhaafay dilaagana waxay u
yaqaanaan The Tag Killer sababtoo ah waxay calaamad ku dhigtaa laabta qofka ay dishay calaamadaas oo u muuqata silsiladda Catalia dhinaca kale Richard oo ah wakiil ka tirsan CIA-da ayaa u safraya Colombia si uu ugu tago guriga fiilada ee uu ku nool yahay Don Luis kaasoo ah ninkii aynu ku soo aragnay bilowga filimka Richardna wuxuu kala hadlayaa dilka ka dhacay xabsiga laakiin Don wuu iska fogeynayaa inuu wax luga ku leeyahay Richard markii uu baxay Don wuxuu Marco u sheegayaa inay dilkan ka dambayso Catalia sababtuna ay tahay Marco inaanu dilin markii ugu horeysay ee uu arkay wuxuuna amar hadda ku siinayaa inuu dilo dhinaca kale Catalia waxay la kulantay adeerkeed Emilio wuxuuna u sheegay inuu walaalkii ka ballan qaaday inuu ilaalin doono marnabana aanu ku talagalin inay noqoto dila Cataliana waxay u sheegaysaa inay dooratay iyadu wadadan isla markaana aanay ka laaban doonin ilaa ay disho Don Luis intaa kadib wuxuu u sheegayaa qorshaha xiga ay sameyn doonaan dhanka kale wakiil Ross wuxuu dib u eegis ku sameynayaa kamaradihii amniga ee xabsiga mid ka mid ah wakiiladiisa ayaa aaminsan inay dilkan ka dambayso Catalia laakiin ma rumaysanayaan dambiga sidaa u adag inay geysan karto qof dumara Catalia waxay timi goobteeda shaqada waxayna ku aragtay laba ay oo waaweyn waxayna siinaysaa hilib doofaar sidoo kale waxay meesha ku aragtay adeerkeed saaxiibkii Bebe wuxuuna ka mas'uul yahay diyaarinta hubkeeda iyo waliba gaadhigeeda waxay furtay qasnad waxayna kala soo baxday baasaboorkeeda been abuurka si ay ugu safarto dalka Colombia dhanka kale waxaanu aragnaa ninkii mishanka lagu filin lahaa oo ku nool fiilo kuna hareeraysan yihiin dumar qurux badan wuxuuna ku wargelinayaa ciidankiisa inuu u baahan yahay ilaalo dheeraada Catalia waxay soo gaadhaysaa goobta waxaanu aragnaa iyadoo ku jirta barkada dabaasha waxayna la soo baxaysaa baaskoolada aan sanqadha lahayn ninkii maamulaha ayaa soo kacaya wuxuuna arkayaa xabadkiisa oo ay ku qoran tahay kelmadda tuug markii uu banaanka u soo baxay wuxuu arkayaa dhammaan ilaaladiisii inay dhinteen wuxuuna soo qaatay laba baaskoolado isagoo soo aaday dhanka barkada waxaynu aragnaa Catalia oo ku fadhida kursi oo is leeyahay toogo laakiin nasiib darro labadiisa baaskooloodba way maran yihiin waxayna ka tooganaysaa lugaha isla markaana wuxuu ku dhacayaa barkadii waxaana cunaya kalluunkii intaa kadib Catalia waxay dib ugu noqonaysaa dalka Mareykanka gaar ahaan guriga Dani dhinaca kale Ross wuxuu baranayaa kaarka gaarka ah ee wicitaanka dilaaga wuxuuna ogaanayaa calaamada uu dilaagani isticmaalo inay tahay ubax ka baxa dalka Colombia Ross wuxuu isku dayayaa inuu kiiskan ku daro kiisas ka furan dalka Colombia laakiin waxaa loo diidayaa sababo la xiriira awoodda CIA-da Ross wuxuu wacayaa Richard isagoo ka codsanaya ogolaansho laakiin Richard wuu iska fogeynayaa arrintan Richard wuxuu sidoo kale wacayaa Don Luis isagoo ku adkeynaya inuu arrinkan soo gabagabeeyo intaani ogaan Ross Don Luisna wuxuu dilka Catalia u xil saarayaa Marco maalintii xigtay waxaanu aragnaa Dani oo sawir ka qaadaya Catalia oo huruda markay toostana waxay si degdeg ah uga baxaysaa guriga waxayna kulan la yeelanaysaa adeerkeed Emilio aad ayuu xanaaqsan yahay kadib markii uu akhriyay wargeyska sababtoo ah hadda cadowgu waxay ogaadeen inay dilalkan ka dambayso Catalia cabaar ayuu canaantay wuxuuna u sheegay markii uu dhintay wiilkiisu inuu isaguba dilay dad badan laakiin balse aanay waxba isbedelin wuxuuna siinayaa sawirka waalidkeed si ay u xasuusato danteeda waxay adeerkeedii aayadeed u raacaysaa kaniisadda waxayna u muuqataa iminka inay diyaar u tahay ka tanaasulidda rabitaankeeda argoosiga dhanka kale Dani wuxuu joogaa goob lagu qaxweeyo isagoo saaxiibkii u sheegaya saaxiibadii Jennifer tusayana sawirkii uu ka qaaday intaa kadib waxa kacaya Dani saaxiibkiina wuxuu taleefankii ka wacayaa dumaashidii oo ka shaqeysa saldhigga booliska wuxuuna ka codsanayaa inuu baaro Jennifer iyo waxay tahay si aanu dhib u soo gaarin Dani intaa kadib Ross kombiyuutarkiisa waxa ku soo dhacaya sawirka Catalia Rossna wuxuu u muuqdaa mid imika raadinaya Catalia dhinaca kale Catalia waxay ku soo laabatay guriga waxayna wacday Dani iyadoo isku dayaysa inay u muujiso dareenkeeda Dani ayaa u sheegay inuu sawir ka qaaday waanay xanaaqday waxayna weydiinaysaa inuu cid kale la wadaagay wuxuuna u sheegayaa inuu la wadaagay saaxiibkii isla waqtiga booliska Iswaad ayaa soo weeraraya si ay gacanta ugu dhigaan laakiin waxay ka baxsatay saqafka sare ee dhuumaha waxayna toos u abaartay guri ay ku qarsatay qoriga shiishka booliska Iswaadna iyagoo ka baaraya guriga waxay qarax ku xidhay gidaarka si ay u baxsato waxayna hoos u raacday tuumbooyinkii iyadoo adeegsanaysa suun ugu dambeynna waxay ku soo baxsatay tareenka dhulka hoostiisa waxayna soo gaadhay gurigii Emilio laakiin nasiib darro waxay aragtay in la soo weeraray gurigii waxay aragtay Bebe iyo aayadeed oo meyda waxay raadisay adeerkeed Emilio waxayna aragtay iyadoo lagu xidhay kursi isla markaana dhaawac tiro badan ka muuqda jirkiisa dhanka kale Ross markii uu guriga ku soo noqday waxaba gurigii uga sii horeysay Catalia waxayna ku amartay inuu fadhiisto iyadoo uu sheegtay inay kursigiisa ku xidhay waxyaabaha qarxa si ay uga hortagto dhaqdhaqaaqiisa waxay kaloo daaha ka qaaday in ubaxii ay ku dhajin jirtay laabta dhibanayaasheeda in uu dignin uu ahaa Don Luis waxayna u sheegtay ilaa ay ka hesho xogta CIA-da ee ku saabsan Don Luis inay mid u dili doonto ilaa ay dareemaan xanuunkii ay dareensiiyeen yaraanteedii waxay kaloo u ballan qaaday inay bambada bakhtiin doonto isla marka ay baxdo Ross wuxuu u yimid Richard wuxuuna uga warramay arrinkii laakiin Richard wuu diiday inuu ka bixiyo macluumaad Don Catalia ayaa Ross soo wacday waxayna u sheegtay Richard inuu dhiman doono haddaanu sheegin warbixinta waxayna laabta kaga qabatay diiradda qorigeeda Richard oo markii hore is adkeynayay wuxuu muuqday inuu cabsaday waxaan u bixiyay xogtii Catalia waxay soo aaday geerashkii Bebe si ay uga qaadato
xoogaa huba waxayna kaxaysatay gaadhi iyadoo hore u sii wadatay labadii ey. waxaynu aragnaa Mark oo u khudbadaynaya qaar ka mid a ciidankii. Don Luis ayaa dareemaya inuu ku soo wajahan yahay gantaal wuxuuna ku badbaadayaa si dirqi ah. Mark ayaa ka soo jiidaya meeshii uu ku hoos jiray. afar ka mid a ciidankii ayaa kaxaysanaya baabuur. Catalayana waxay soo jiidaysaa ciidankii iyadoo burburisay baabuurkoodii waxayna intii badbaaday ku dhammaystiraysaa rasaas. sidoo kale waxay rasaas shaandha kaga dhigaysaa ciidanka intii hadhay. Markona Don wuxuu ku xidhayaa qol isagoo isku dayaya inuu dilo Catalia. ugu dambeynna Mark iyo Catalia waxay u kulmayaan si face to face ah waxaana Catalia u suurtagelaysa inay ka takhalusto. dhinaca kale Don Luis wuxuu iska furayaa albaabkii isagoo ogaaday in dhammaan ciidankiisii ay dhinteen wuxuuna kaxaystay mid ka mid a baabuurtiisa waxaana wadada iskaga horgudbaya gaadhiga qashinka waxaana laga soo wacayaa taleefankii gacanta ee Marco. Don Luisna wuxuu u sheegayaa inaanay weligii dili doonin laakiin nasiib xumo wuxuu arkayaa labadii ay oo ku jira gaadhigiisa waxayna cadcad u jarayaan hilibkiisii iyagoo dhammaystiraya argoosigii Catalia. dhanka kale Dani waxa qabtay Rose si uu u weydiiyo su'aalo wuxuuna siiyey waqti uu kaga fikiro su'aalaha. intaa kadib waxa soo wacday Catalia una sheegtay inuu haysto 40 ilbiriqsi si uu u weydiiyo 3 su'aalood ka hor inta aan la tixraacin taleefankeeda wuxuuna weydiinayaa magaceeda dhabta iyadoo u sheegaysa in la dhaho Catalia. Dani wuxuu la yaabayaa gabadha intaasoo dhan uu la noolaa haddana aanu ogeyn magaceeda dhabta ah waxayna u sheegaysaa inay dhici karto inay mar kale is arkaan. intaa kadib mid ka mid a dambibaadhayaashii ayaa Rose ku wargelinaya inay soo wacday Catalia waxayna u soo ordayaan dhankiisa laakiin Catalia ayaa isla markiiba jaraysa khadka waxayna waayayaan wax raadraaca. filimkuna wuxuu ku dhammaanayaa halkan waanad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka.